Okay, aniga shaqadeyda waan jeclahay. Walaalkan markuu imaanayay saan uu ekaa. Walaalkan jirkiisa markaa si fiican u fiirisid, waxaad ka arkaysaa walaalkan weligiis naftiisa inuusan waqti gelin. Walaalkan jirkiisa markaa si fiican u fiirisid, waxaad arkaysaa calooshiisa inay aad u weyn tahay. Walaalkan dhan walba markaa ka fiirisid, ma lagu murmaayo inuu yahay buskut dhinac laga cunay. Walaalkan da'diisa waa 30 sano, miisaankiisana waa 94 kiilo. walaalkan jirkiisa marka aad fiirisid ma u eko qof 30 sano jiro sababtoo murqihii loogu talagalay 30 jir ma ka muuqdaan. walaalkan jirkiisa marka si fiican u fiirisid jirkiisa wuxuu eg yahay qof jiro 60 ilaa 70 sano. jirkiisa suu eg yahay waxa kaloo ka sii darnaa walaalkan wada shaqeynta marka bilaabeynay wuxuu qabay dhiigkar. blood pressure-kiisa marka la cabiro qaybta kore systolineenka waxay ahayd 150. qaybta hoose diastolineenkana waxay ahayd 100. cholesterolkiisa cirka ayuu ku jiray wuxuu kaloo ahaa pre-diabetes. testosterone meeshii ugu hooseysay ayuu joogay. marka waxaa laga yaabaa adiga videogan fiirsanayo inaad isleedahay walaalkan iyadoo da'diisa ay saan u yar tahay sidee jirkiisa saan ugu ekaaday xanuunadana ay ugu dhaceen. anaa ku sheegayo si fiican ii dhageyso. walaalkan shaqadiisa waa taksiile. taksiga waa shaqo fadhi ah. badanaa qofka taksiilaha ah sidoo lacag macquul u shaqeeyo waa inuu shaqeeyaa saacado badan. marka walaalkan wiigi maalin walba ayuu shaqeynay, maalintiina saacado badan ayuu shaqeynay. dhibkiisa meeshaas ayuu ka bilaabmay. walaalkan shaqada fadhiga ah waxa u sii dheereed maqaayad ayuu wax ka cuni jiray. mararka qaar maalin walba buffet ayuu wax ka cunay. maqaayadaha buffetka ah haddii aadan aqoonin hal mar lacagta bixinaysaa markaasna intaa rabtid ayaa cunaysaa. badanaa dadka shaqooyinka hoose ka shaqeeyo maqaayadaha buffetka ay aadaan waa maqaayado raashinka lagu gado uu yahay raashin low quality ah. qofka markuu waqti dheer mar walba cunana ugu dambeyntii uu ku xanuunsanayo sida walaalkan oo kale. marka walaalkan wuxuu u fikirayay badanaa dadka Soomaalida ah si u fikiraan. walaalkan wuxuu islahaa iska shaqeyso waxaa rabtid iska cun, caafimaad iyo jimicsi iyo waxaas waa faakiheysi taajiriinta ayaa loogu talagalay. laakiin nasiib darro se wax u maleynayay way noqon waayeen. waa kana walaalkan jirkiisa saan uu eg yahay intaanu xanuunna way ku dhaceen dadkana ma ka taajirsano. ujeedka walaalkan qisadiisa aan uga sheekeynayo wax kale ma ahan. waxaan rabaa adiga ku nool walaalkan lifestyle-kii uu ku noolaan jiray oo kale inay tusaale fiican kuu noqoto walaalkan qisadiisa. mideeda kale walaalkan asaa fasax ii siiyey qisadiisa inaan ka suubiyo video. wali wuu igu dhiirigeliyey qisadiisa inaan ka suubiyo video. sababtana wax kale ma ahan. walaalkan wuxuu rabay dadka maanta ku nool walaalkan lifestyle-kii uu ku noolaan jiray oo kale qisadiisa inay u noqoto tusaale fiican. marka ogow caafimaadka iyo jimicsiga ma ahan wax loo suubiyo faakiheysi ay suubiyaan taajiriinta bes. marka isku soo duub walaalkan markuu imaanayay waxa koobaad aan saxnay waxa uu ahaa raashinka. caloric deficit ayaan geliyay. guud ahaan waxaan joojinay banaankii uu wax ka cunayay. waxaa kaloo joojinay sokortii qarsooneed. walaalkan maalintii maadaama waqti dheer uu shaqeeyo kafey badan oo sokor ka buuxdo ayuu cuni jiray. kafeygii sokorta lagu darsanayay waan joojinay. walaalkan wuxuu bilaabay gurigiisa asiga raashinka inuu ku suubsado. wuxuu kaloo bilaabay raashinku uu cunayo inuu cabiro saan 100% u ogaano waxa jirkiisa galayo. walaalkan supplement ahaan wuxuu isticmaalayay bes whey protein. waxaa kaloo isticmaalaynay minerals iyo vitamin sida vitamin D, zinc, magnesium. walaalkan barnaamijkii raashinka aan u diyaariyay 100% sida loogu talagalay ayuu uga soo baxay sababtoo caafimaadkiisa ayaa ku xirnaa. waxaa kaleete oo bilowgii walaalkan u suubiyay barnaamij jimicsi oo asiga goolkiisa iyo tabartiisa ku salaysan. walaalkan jimka weekii wuxuu aadi jiray 5 maalmood. maalintii jimka waxa uga bixi jirtay 2 saacadood. weekina jimka waxa uga bixi jirtay 10 saacadood. walaalkan barnaamijkan u suubiyay wuxuu iskugu jiray birqaadis iyo cardio. barnaamijka jimicsiga walaalkan u suubiyay 100% wuu ka soo baxay. dabcan way jiraan marar badan oo wax ka khaldameen laakiin intii tabartiisa ah wuu dadaalay. waxaa kaloo suubinay waxaa soo yareynay walaalkan waqtigii uu shaqeynayay. waqtigiisa 3 ayaa u kala qaybinay. waqti uu shaqeysanayo, waqti uu jimicsi suubinayo iyo waqti uu nasanayo. walaalkan xanuunada ku dhacay waxa keenay waxa qayb weyn ka ahaa
dhafarka ninka ragga ah uma fiicna. Tusaale ahaan waxaan rabnay walaalkan natural testosteronkiisa inaan kor u soo qaadno, laakiin taas suurtagal ma ahan qofka hadduu habeen walba dhafraayo. waxaan isku daynay habeenada qaar walaalkan inuu shaqeysto maadaama uu tagsiila yahay, weekendayda kaleeta inuu habeenkii shaqeeyo, maalmaha kaleetana uu habeenkii si fiican u hurdo si jirka markaas suurtagal ugu noqoto habeenkii marka uu hurdo testosterone inuu suubiyo. Marka dhafarka muuqaalo badanaa ka suubiyey, qaasatan ninka ragga ah dhafarka cadow ayuu ku yahay. Marka hadda aniga walaalkan waxaa wala shaqeynay 9 maalmood ama waxaa noo dhamaatay 3 bilood. 3 bilood oo wada shaqeyn fiican na dhex martay. Walaalkan hadda sidaan ayuu eg yahay. Dabcan marka aad fiirisid jirkiisa sida uu ekaan jiray iyo hadda sida uu eg yahay, farqi weyn ayaa u dhaxeeyo. calooshiisa intee leekeed iyo hadda intee leeg tahayna farqi weyn ayaa u dhaxeeyo. guud ahaan walaalkan jirkiisa aad ayuu isku bedelay. wada shaqeynta markaan bilaabeynay walaalkan miisaankiisa wuxuu ahaa 94 kiilo, haddana waa 79 kiilo. 3 bilood walaalkan waxaa ka dhacday 15 kiilo. taas waxaa kasii daran walaalkan wada shaqeynta markaan bilaabeynay wuxuu qabay dhiiggiisa aad ayuu kor ugu kacsanaa. hadda dhiiggiisa marka la cabiro ama blood pressurekiisa marka la cabiro meeshii loogu talagalay ayuu joogaa. kolestaroolkii wuu ka baaba'ay, wuxuu kaloo ka baxayna pre-diabeteski. hadda sokor inay ku dhacdo riski ma ugu jiro. walaalkan weli jirkiisa murqo badan ma ka muuqdaan, laakiin waxaan wala shaqeynay waa 3 bilood. 3 bilood inuu jirkiisa saan isku bedelo, uu caafimaad daradii haysay uu ka baxo, taas xitaa wax weyn waaye. marka hadda maadaama problemkii caafimaad darada haysay aan xalinay, hadda ka bacdi shaqadeena waxay noqonaysaa qorxis. hadda ka bacdi shaqadeena waxay noqonaysaa walaalkan murqo cusub inuu suubiyo ama murqo inuu dhisto. 3 bilood ee soo socoto walaalkan video kalan ka suubinaa, waxaa idin tusinaa jirkiisa oo isku bedelay sida athletics oo kale. marka ujeedka videogan waxa uu yahay inaysan macquul ahayn inaad qashin iska badisid isla markaasna aad dhahdid waan shaqaysanaa oo waqti nafteyda ma gelinayo, wax jimicsi ah ma suubinayo. taas macquul ma aha. hadda taas weli aaminsan tahay walaalkan qisadiisa tusaale fiican ha ku ahaato. waa qasab waxaa cunaysid inaad iska fiirisid haddaad rabtid inaad caafimaad qabtid. waa qasab inaad jimicsi suubisid haddaad rabtid inaad caafimaad qabtid. waxaa cunaysid markaa iska fiirisid, jimicsina markaa aad suubisid. hadduu ilaahay yiraahdo xanuuno badan oo kugu soo socday ayay kaa badbaadinayaan. adduunkan waxa ugu muhiimsan waa caafimaadka. haddaadan caafimaad qabin waxba ma tihid. asxaabta video inta ka bixin adiga videoga fiirsanayo, haddaad rabtid coach diyaar aan ku ahay, coach waan kuu noqonaa. ani markaan ku leeyahay coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan barnaamij inaan kuu soo suubiyo oo kuu soo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso. wax walba anaa soo diyaarinayo. adiga waxaa lagaa rabaa suubis iyo inaad warbixin isoo siisid. haddaad rabtid isbedel dhab ah inaad suubisid, waxaa igala soo xiriirtaa emailkan ama waxaa si toos ah igala soo xiriiri kartaa website-keena. balan waaye gacno furan ayaan kugu soo dhaweynaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaa videogan like inaad saartaan, commenti aad kasoo bixisiin, asxaabtiina aad u share garaysaan. mahadsanidin mar koobaad, mar labaad, mar saddexaad. waxaa noo balanay videogan videoga ku xigo. balanteenu waa caafimaad iyo muro.